hal daqiiqo hal qalad iyo 127 saacadood oo bedeshay go'aan nololeed. Tani ma aan filim iska caadi ah ee waaqis dhab ah oo adiga xitaa kugu khasbaysa inaad isweydiiso aniga haddaan ahaan lahaa maxaan samayn lahaa. Filimkani 127 Hours wuxuu ka sheekeynayaa nin ku xanimay buur cidla ah, cidna uusan wici karin, rajan uusan arki karin, iyo hal doorasho oo keliya una dhaxaysa nolol iyo geeri. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, kusoo dhawaada channelkeena Qafiifo Bro. Haddii aad jeceshahay filimada ka hadla xaqiiqooyinka dhabta ah, kuwa maskaxda gilgila, kuwa ku reebaya fariin marnaba maskaxdaada ka bixin, kani waa channelkaaga, waa inaad subscribe dhahdaa. Sidoo kale muuqaalka like oo dhaha si uu u gaaro meel dheer. Mahadsanidin. Sheekada filimkan waxay ku bilaabanaysaa ninkani oo lagu magacaabo Aaron, oo ah nin jecel kelinimada kuna faraxsan inuu kaligiis safar far badan uu galo. Wuxuuna ka helaa buuraha, meelaha dhagxaanta leh iyo sidoo kale meelaha cidlada ah. Buurka ninkan wuxuu muujinayaa filimka inuu yahay qof isku kalsoon, kaligiis wax walba uu qabsan karaa. Sidoo kale wuxuu aaminsan yahay mar walba kaligiis inuu isku filan yahay. Aaron ma jecla dadka inuu la wadaago qorshihiisa. Markuuna go'aansanayo safarkiisa kanyoonka, cidna uma sheegayo halka uu aadayo. tanina waxay muujinaysaa isliweyn sidoo kale inuu abuuranayo khatar, isagoona aaminsan safarkan inuu yahay mid sahlan oo degdeg ku dhamaan doona. Intii uu safarkiisa ku jirayna wuxuu la kulmay dad far badan oo dalxiisayaal ah, isagana markaan wuxuu muuqdaa qof faraxsan, hadal badan, sidoo kale qofaanaya khibradiisa buurfoolista. Tani waxayna muujinaysaa ninkan inuu yahay qof jecel in la buunbuuniyo, sidoo kale dadka isoo hordhigdhiga mar waliba. Kuuna kasoo taga dadka, Aaron wuxuu dhexgalayaa buur cidla oo ciriiri ah, oona leh derbiyo dhaadheer iyo marino ciriiri ah. meesha uu joogaa sidoo kale noqonaysa meel aamusan, sidoo kalena qorraxda si dhib yar ay u gaaraysaa miskiinka. sidoo kale wuxuu wataa biyo iyo cunto yar, laakiin ma dareemayo wax khatar ah, sababtoo ah wuxuu rumaysan yahay in ay wax waliba ku jiraan gacantiisa. ninkani ayaa mar waliba wuxuu muujiyaa kalsooni xad dhaaf ah, welibana isagoo dhibaataysan. intuu Aaron sii watay safarkiisa uuna ku dhex socday meeshan ciriiriga, marinadan waaweyn ay ku hareeraysiin dhagxaantani, wuxuuna si kalsooni leh ugu sii dhaqaaqay safarkiisa isagoo aanan filnayn wax dhibaato ah. deegaanka ayaan ahaa mid aamusan oo cidna aanan joogin, taasi oona muujinaysa sida uu keli ugu ahaa goobtaasi. si lama filaana dhagax aad u ortaag soo gaa buurta korkeeda daqiiqad gudaheeda. dhagaxaasin wuxuu si aad ugu dhacay gacantii Aaron, isagoona dhagaxaas ku ayaadiyey dhagax iyo buur kale dhexdooda. gacantiis ayaana si buuxda meeshaas ugu xirantay, wayna ku xalimantay, mana jiro meel kale uu uga soo baxsado meeshaasi. Aaron isla markaasi buu qiiliyey, sidoo kalena wuu dadaalay, wuxuuna isku dayay dhammaan awoodihiisa inuu la soo baxo si uuna u dhaqaajiyo dhagaxa. wuu riixay, wuu jiiday, xitaa marar badan wuxuu ku fikiray inuu isa sii daayo, balse dhagaxii ayaa buuxyar xitaa dhaqaaqay. halkaasi ayuuna Aaron ku dareemay xanuun daran iyo cabsi aad iyo aad u weyn. kaaga daran telefoonkiisa maba uu shaqaynayoba, wax signaalana malan. hadduu isku dayo xitaa inuu qaylin ma jirto cid maqlaysa, sababtoo ah meeshaasi ma ahan meel ay marayso dad. si walbuu iskugu dayo inuu qayliin ma jirayso cid maqlaysa codkiisa. taas ayaana ka dhigaysa ninkani markaas inuusan heli karin wax gargaar oo degdeg ah. markaas ayuu fahmay Aaron xaqiiqooyin qaraar oo xanuun badan, taasi oo ah inuu ku xaniban yahay meel cidla ah, uusan cidna u iman karin. sidoo kalena keligiis waa inuu ka gudbaa xaaladaasi, sababtoo ah isagaa islaweyn dadka uu fogaan jiray, iskuna dayi jiray wax walba inuu samaysto keligii. intaanina waa intii ugu adkeed, ugu xanuunka badneed imtixaanka noloshiisa ku bilaabmayay, ayagoona hamarkooda bilaabmeen samir, adkaysi, dadaal, rajo iyo cabsi. markaani xariifkii Aaron ahaa halkan wuxuu ku xaniban yahay 127 saacadood oo u dhiganta 5 maalmood. maalin waliba soo dhaaftan xaaladiisa way sii xumaanaysay, ii uu watayna si tartiib ay u dhammaadeen. cuntadiina gebi ahaanba way soo yaraanaysay, way dhammaanaysay. jidhkiisana wuxuu bilaabay tabardaro inay ku timaado, awoodiisa ay hoos u dhacdo. adigana daawada ha ilaawin muuqaalka inaad like noo saarto, sidoo kale channelkeena Qafiifo Bro aad subscribe soo dhahdo. mahadsanid. maalintii oo idin waxaa ku dhacaysa miskiinka qorax aad u kulul oo gubaysa jidhkiisa, halka habeenkii uu dareemayo qabow daran maadaama uu joogo meel buura ah. beddelkaasi daran ee cimilada sii adkeeyay xaaladiisa, isagoona la kulmay hurdala'aan iyo xanuun. uu ku xanibna halkaasi Aaron wuxuu bilaabay dagaal maskaxeed, welibana isagoo xasuustay dhammaan waxay soo dhaafeen noloshiisa, gaar ahaan qoyskiisa, saaxiibadiisa iyo noloshiisii hore. qaladka ugu weyna uu galay maskaxdiisa kusoo laalaabanaysa waxay ahayd inuu safar keligii soo galo uusan cidna u soo sheegin. mararka qaarna wuxuu dareemayay rajo yar, isagoona islaa waxaa iman doonta gargaar degdeg ah ama inuu heli doono waddo uu uga baxo halkaani. laakiin mararka qaar rajabeel ayaa ku dhacaysay, isagoona dareemay inay u dhowdahay dhimashada. gaajo, haraad iyo kelnimo. Aaron wuxuu bilaabay markaani inuu la hadlo naftiisa, mararka qaarna uu arko ama uu maqlo wax aan dhab ahayn. tanina waxay muujinaysaa sidii maskaxdiisa ay ludaalaysay jidhkiisa. kadib 127 saacadood oo xanibnaan ah uuna la kulmayay gaajo, haraad, cabsi iyo kelinimo, Aaron wuxuu fahmay xaqiiqooyin adag, taasi oo haddii uusan waxba uga samayn xaaladiisa inuu dhiman doono. markaani Aaron maskaxdiisa iyo jidhkiisaba labaduba waa ay daaleen. adigana daawada ha ilaawin muuqaalka inaad like inoo saarto, sidoo kalena wuxuu ogyahay keliya inay jirto hal waddo uu isaga ku badbaadi karo, taasi oo ah inuu jaro gacantiisa si uu uga baxo dhagaxaasi culus ee
ee haysata gacantiisa. Tani waa go'aan adag oo naxdin leh, qof walibana uusan qaadan karin, sababtoo ah isagu waxa uu ku jiraa xanuun jireed oo daran muddo 5 maalmood ah, cabsi nafeed oo uu naftiisu cabsanayay iyo oohin muruga leh. laakiin go'aankaas in badan waa uu ku fakiray, balse wuxuu u noqday halka wado oo keliya oo uu ku badbaadin karo naftiisa. Aaron ayaa wuxuu isticmaalay markaani qalab yar oo uu watay si uu uga jiro gacantiisa, taasi oo muujinaysa adkeysiga bini'aadamka iyo go'aan qaadashada adag. go'aankaas oo qofka sameynayo markuu la kulmo xaalad halis ah oo aad iyo aad u adag. ugu dambeyn Aaron wuu xuroobay isagoona ka baxay dhagaxii gacantiisa xanibayay, isagoona naftiisa sidaas ku badbaadiyay. markuu Aaron gooyay gacantiisa kana soo baxay dhagax, Aaron weli ma ahan qof si buuxda meeshaasi ugu soo badbaaday, weli wuxuu ku jiraa xaalad halis ah oo aad iyo aad u adag. jidhka Aaron wuxuu noqday mid aad iyo aad u tabardaran, sidoo kalena aad ayuu u dhiig baxay miskiinka. markaani Aaron wuxuu u baahan yahay gargaar degdeg ah, fudud laguma dhaafi karo xaaladiisa sababtoo waa uu dhiig baxay. saxabkaaga daran waa inuu socdo masaafo dheer si uu arko dad isaga caawiya. soo socday Aaron waxaa arkaya dad safar ku jira, ayagoona dareemaya ninkan inay haysato dhibaato ama xaalad aad u adag, isla markaasna waxay ka jawaabayaan qayladiisa iyo dhaawiciisa. dadkaas ayaana si degdeg ah waxay filinayaan gargaar degdeg ah, ayagoona sidoo kale u wacayaan ambalaas iyo kuwa shaqada ku leh adeegyada caafimaadka si uu u helo caawimaad buuxda. ugu dambeyn Aaron waa la soo wadaya, waxaana la geenaya dhakhtarkaasi ay u badbaadiyaan xaaladiisa ama noloshiisa. qisada ama sheekada filimka waxay noo diraysaa 5 fariimo. 1 nolosha inay tahay mid qaali ah. 2 kelinimada mararka qaar inay tahay khatar. 3 go'aanada adag mararka qaar inay keenaan badbaado. 4 in aadan iska indhatirin digniinaha ay ku siinayso nolosha. ugu dambeeya ahna midka 5aad inaadan weligaa iska lumin rajo waliba oo aad aragto. guud ahaan qisada filimkan waxayna baraysaa qiimaha nolosha, adkeysiga iyo muhiimadda feejignaanta. sidoo kalena waxayna tusaysaa xaaladaha ugu adag rajo sax ah iyo go'aano la haysto inay keeni karto badbaado. sheekada filimkan waxayna baraysaa in mararka qaar nolosha ay kugu qasbi karto go'aano aan la malayn karin, laakiin qofka aan quusan marnaba isdhiibin ayaa helaya wado uu ku badbaado. haddaba haddii aad dareentay cabsida, xanuunka iyo geesnimada, sheekadan way kusoo gaartay fariinta oo aad dareemaysaa isla imika. waxaan idinka codsanaya muuqaalkan like noo saartaan si uu gaaro meel fog. mahadsanidin. tan iyo filim kale intaan ku kulmeen waxaa idin dhaafay caafimaad.